السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin aad ii dhibtay oo ku soo badatay baraha bulshada. arrintaas oo ku saabsan sharafta muslimiinta. dagaalkii Tabuuk, nabiga sallallahu alayhi wasallam markii goobta dagaalka la tagay, su'aal buu soo jeediyay. su'aasha waxay ahayd: ayna Ka'b bin Malik aaway? saxaabada kamid ah oo goobta jooga wuxuu yiri: xabasahu burdaa. nabi allow, Ka'b bin Malik waxaa reebay gu'iisi baa reebay, dharkiisi baa la qurxanaaday, wuu is cajibiyay, dib buu u haray buu yiri. Mucaad bin Jabal, allah kana noqda oo goobta fadhiyo, baa wuxuu yiri: bi'sa maa qulta, waxaa baas lahaaday oo shar badan hadalka aad ku hadashay buu yiri. walaalayaal, asagoo difaacayo sharafta walaalkiis Ka'b bin Malik. laakiin xiliyadan dambe aan noolnahay waxaa nagu soo batay dad inay mikrofon qaataan, dadka weydiiyo su'aalo maala yacni ah, su'aalo cantara baqasha oo macno darro aan waxba faa'iidaynaynin. tusaale aan ku siiyo, mikrofon bay dadka la dhexmaran waxay leeyihiin qabiilka maqaarka caanka ku ah noo sheeg bay leeyihiin, ama qabiilka saanisaan caanka ku ah. markaas baa waxaa dhacayso qabiil dhan oo muslimiin ah in loo gafo, qabiil dhan oo muslimiin ah xumaan lagu tilmaamo. dadkaas waxaan leeyahay allah subxaanahu wa tacaala ka cabsadaan, sababtoo ah sharafta qofka muslimka ah waa lama taabtaan. wallaahi allah subxaanahu wa tacaala waan ku dhaartay, haddaan sharafta qofka muslimka ogaan lahayn, iska dhaaf inaan wax ka sheegne, indhaha xataa uma dhammaystiri lahayn. dadkaas allah subxaanahu wa tacaala ka cabsadaan, ha joojiyaan waxyaabaha aan faa'iidada u lahayn bulshada ay ku dhex faafinayaan. farriintan ha laga gaarsiiyo qof kasta ay qusayso oo arrinkaas maaragtay ku dhex jira insha allahu tacaala. waa intaas uu u noqdo waano ay kuwaana qaataan.